بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي مضاوض يالكسو دوادا برامج ورادك جنة الكحولك ورارك قضوبدا آن إذن كوسو قد بنتونا وحاقيبك نغنيا مدحوين حسن شيخ محمود وقلك وفيلا الصومالية كدح دقاني هاي كصوب بحي الله كدي مركي ودواني وقد عاي كوفيد 19 maadaama lagu jiro toddobaadka xurriyadda Soomaaliya haddaba waa sidee xaaladda madaxweynaha iyo faahfaahin ku aadan ayaan idin la wadaagi doonaa qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya wafdigii Xasan Sheekh u raacay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo mid walba Muqdisho ku karantiilan iyo shaqadii ay hayeen oo sodhac ballaaran ku yimid haddaba xubnahaas ayaa ka mid ah maxayse magacyadooda kala yihiin waan idin la wadaagi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo xalay ka qayb galay munaasabadda xurriyadda 26 Juun iyo khudbadan la filin uu ka jeediyay waan idin la wadaagi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale hadba wixii nagu soo kordha faahfaahintooda ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedka janalka xulka wararka fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe like iyo share intuba aad nala wadaagto ku soo dhawaada barnaamij wareedkii oo dhammaystiran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu qalka uu ka degan yahay fila Soomaaliya weli uu ku karantiilan yahay kadib soo noqoshadii dalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa si rasmi ah uu shaaca uga qaaday in baaritaan uu maray laga helay caabuqa COVID-19 oo ah mid safmar ah isla markaana weli raadigiisa meelo badan oo dunida ah uu ka jiro isla markaana uu geysay saameyn kala duwan oo iskugu jirta hakita isku socodka dunida iyo dhaqaalaha oo sodhac ballaaran uu ku yimid isla markaana uu sabab u yahay cudurka COVID-19 inkastoo madaxweynaha uu hore u sheegay in uu iskarantiilayo si uu cudurka u faafin oo saameyntiisa dadka la shaqeeya uusan u gaarin ayuu hoosta ka xariiqay inuu qaatay talooyin caafimaad ee isaga la siiyay waxaana la xusay in weli qolkiisa uusan ka soo bixin xukunka iyo talada dalkana halkaas uu ka maamulayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana xalay aanan ka soo muuqan munaasabadaha dabaaldega xurriyadda maadaama xalay dalka oo idil ay ka bilaabatay dabaaldega toddobaadka xurriyadda Soomaaliya munaasabadahan waaweyn ayaa xusuus iyo sidoo kale waxa ay buddig u tahay halgamayaashii naftooda iyo maalkooda u horay halgankii adkaa ee ay soo galeen waxaa warqad qoraal ah oo aan sidaas u dheeran lagu daabacay bogga villa Soomaaliya lagu shaaciyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu caafimaad qabo wali uuna sii wado talooyinka caafimaad la siiyay sidoo kale warqadda ayaa waxaa hambaliyada xurriyadda gobolada waqooyi lagula wadaagay ummadda Soomaaliyeed waxaana lagu sheegay in uu madaxweynaha ka cudur daaranayo ka qaybgal la'aantiisa munaasabadaha waaweyn ee qiimiga ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed waxaan ka cudur daaranayaa inaan goobjoog u ahaan waayo xuska maalmaha xurriyadda sabab la xiriirta caabuqa COVID-19 oo aniga i haleelay kadib markii aan maray baaritaan badqabka haddana waan caafimaad qabaa ayaa qoraalka lagu qoray oo villa Soomaaliya la soo dhigay taas oo hambalyo loogu dirayay ummadda Soomaaliyeed munaasabadaha toddobaadka xurriyadda oo xalay Muqdisho iyo guud ahaan dalka ka bilaabatay Xasan Sheekh iyo wafdiga hogaaminayo ayaa horaantii toddobaadkii ina dhaafay waxa ay booqasho ku tageen magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta iyada oo warar soo baxay ama warbaahinta u soo disay la sheegay in xubnaha wafdiga ka midka ah COVID-19 laga helay sidaasna maalmihii uu qorshe ahaa booqashada ay sii daba dheeraatay waxaa sid mudan in isla shalay uu madaxweynuhu ka baaqday kulankii baarlamaanka lagu horgeynayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda balse waraqad uu soo qoray isla markaana xubnaha uu ka hor aqriyay xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdigaliin Xaaji Cabdi Buux looga codsaday inay ansixiyaan baarlamaanka isla markaana codsiga madaxweynaha ayay si dhab ah xildhibaanadu ay u aqbaleen cod gacantaaga ayayna ku ansixiyeen wafdigii madaxweynaha u raacay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa weli waxa ay qaarkood Muqdisho ku karantiilan yihiin iyaga oo la sheegay in howlaha qaranka u hayeen hadda uu ku yimid gaabis kala duwan wafdiga madaxweynaha ee toddobaadkii hore ee ina dhaafay ku taga dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ku welinayay agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha
ee dhanka amniga xuseen macalin waxaana la sheegay in xubnihii wafdigaasi u raacay guud ahaantooda magaalada muqdisho qolal ku yaalla ay isku karantiileen warar kala duwan oo aan helnay ayaa sheegaya in xubnaha magacyadooda aan idinla wadaagay ay hadda muqdisho ku karantiilan yihiin islamarkaana shaqooyinka ay hayeen la sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimiday wafdigani ayaa waxaa la sheegay in ay dalka isu taga imaaraadka carabta ay u tageen sidii kulamo gooni ay ula yeelan lahaayeen qeybaha kala duwan ee madaxda ugu sareysa dalka isu taga imaaraadka carabta booqashada oo waqti kooban ahayd oo dheeraatay waxaa sidoo kale xusid mudan in wafdiga xubno ka mid ah laga helay COVID-19 oo ah cudur safmar ah islamarkaana dunida faraba'an ku hayay ayaa waxaa la sheegay in dad badani ay dunida ku nool ay u dhinteen ha yeeshee mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka Soomaaliya ayuu hadda haleeliyay inkastoo aanan weli shaaca laga qaadin xubnaha wafdiga madaxweynaha u raacay isu taga imaaraadka carabta sida ay hadda xaaladooda caafimaad tahay ha yeeshee waxa ay warar kala duwan ay sheegayaan in ay iskarantiilaan oo kaliya baaritaan caafimaadna hore loogu sameeyay aanan wax natiijo ah lala wadaagin bulshada inteeda kale laakiin wafdiga oo ahaa mid culus islamarkaana oo ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta magacyadooda aan qor idinkugu xusay ayaa lagu soo waramayaa in muqdisho ay isku karantiileen haddii aan eegno qodobkeena ugu dambeeya barnaamij wareedka janaalka xulka wararka ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay waxa uu ka qayb munaasabadda xurriyadda toddobaadka Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Luulyo ha yeeshee munaasabadaas oo si hagaagsan loo soo qaban qaabay isla markaana ka dhacday xarunta dawladda hoose ee Vice Governor ayaa waxaa mas'uuliyiintii goobtaasi ka hadashay intooda badan ay ka sheekeeyeen xurriyadda Soomaaliya iyo waqtigii ay ku bixiyeen aabayaasha Soomaaliyeed waxaana la sidoo kale la soo warinayaa in munaasabadii xala dhacday ay mas'uuliyiinta ka qayb gashay intooda badani ay carabaabeen in madaxda qaranku ay u heelan yihiin munaasabadaha waaweyn ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday in dhowaan xukuumadda markii uu soo dhiso qada ugu horeysa ee dhowaan ay bilaabi doonto xukuumaddiisa laga dhigi doono in wadahadaladii dawladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland dib loo soo celiyay iyada oo miiska wadahadalka la keeni doono xubnaha Somaliland si go'aan buuxda looga gaaro midnimada ummadda Soomaaliya uu cadeeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda khudbadii uu xalay ka jeedinayay magaalada caasimadda ee Muqdisho toddobaadka xurriyadda Soomaaliya ah toddobaad u qiimo badan ummadda Soomaaliyeed isla markaana ah markii aabayaasheena ee hiriyada gumaysiga ay ka saareen guud ahaan dalka Soomaaliya guud ahaan intaas ayaan ku soo afbeerayaa barnaamij wareedka janaalka xulka wararka waana ku mahadsantiin daawashada barnaamij wareedkana waxaan mar kale idinka codsanayaa inaad subscribe like iyo share intuba aad nala wadaagtaan mahadsanidin